saacan waxay soo jeediyay oo igu kalifay inaan video duubo oo idin soo hor fariisto wax kale maaha waa xanuun iyo dhibaato aan dareemayo caawo dhibaatadeedana waxa dareemi karo wiil walba gabar ay la dhalatay ma fahanteen Soomaaliyey waa idin baryayaa ceebteyda qariya biyaha ayaa la igu daray daroogo 5 sano ayaa la igu gumeysanayay muuqaalkan galmada ah waxaa sidaas la gabadhan caanka ka ah barta TikTok ee fahmo fiicanay lagu magacaabo gabadhan ayaa idinka codsanaysa in muuqaalkaas anshaxumada ah ee baraha bulshada wareegaya si walaalnimo ah in loo qariyo oo ay tiri waan idin baryayaa ee halay ceeb asturo muddo ayaa la iga qaadanayay lacag iyo wax walba sidii uusan muuqaalkaas u soo gaari lahayn baraha bulshada ay Soomaalidu isticmaasho waxyaabo badan oo ku saabsan gabadhan sida muuqaalka looga duubay qofka ka duubay iyo xilliga uu ka duubay ayaad warbixintan kaga bogan doontaa daawade fadlan haddii aad nagala socoto boggeena Facebook fadlan follow dheh like taabo siina share garey haddii aad nagala socoto barta YouTube ka Maskaxmaal Media fadlan daawade subscribe taabo oo like dheh gabadhan waxaa loo yaqaanaa fahmo fiicanay waxayna magacaasi ku soo gashaa barta aaladda Soomaalidu sida weyn u isticmaasho ee TikTok iyada oo kamid ah dadka followerska ugu badan ku leh bartaasi gabadhan ayaa habeennimadii xalay ahayd waxay iska soo duub muuqaal taabanaya qulubta qof walba oo Soomaaliyeed iyadoo leh muuqaal anshaxumo ah oo aniga ah ayaa la wareejinayaa Soomaaliyey waxaan idinka codsanayaa inaad ceebteyda asturtaan oo aad ii ceeb qarisaan waxay tiri waan jeclaaday jacayl ayaa naga dhaxeeyay meel ayaan ku wada kulanay kadibna biyaha ayuu iigu daray darooga ayay tiri gabadhan ayaana sheegtay in wiilkan ay magaciisa ku hadaaqayso oo leedahay waxa la yiraahdaa Ibrahim inuu jacayl uu ka dhaxeeyay kadibna uu qiyaanay biyahana uu ugu daray daroogo kadibna uu ka faa'iideystay waxay tiri muuqaalkan muddo ayaa la igu rikaateynayay dhibaato oo dhan ayaan u soo maray sidii uusan u soo gaari lahayn baraha bulshada waan idin baryayaa waxaan ahay walaashiinoo kale fadlan waxaa ka codsanayaa in aadan share gareyn oo aadan sii faafin iyo ceeb qariya ayay tiri gabadhan Soomaaliyeed ee sida weyn ugu caan baxday barta aaladda TikTok muuqaalka ay soo duubtay ayaan kula wadaagi doonaa daawade fadlan muuqaalkan sii share garey oo saaxiibadaada kala duwan gaarsii daawade haddii aad nagala socoto bogga YouTube ka subscribe taabo haddii aad nagala socoto bogga Facebook fadlan follow dheh ama like dheh sii share garey si uu saaxiibadaada kala duwan u gaaro waa kana muuqaalkii ay soo duubtay gabadhan Soomaaliyeed ee loo yaqaan fahmo fiicanay ka bogasho wacan daawade saacan waxay soo jeediyay oo igu kalifay inaan video duubo oo idin soo hor fariisto wax kale maaha waa xanuun iyo dhibaato aan dareemayo caawo dhibaatadeedana waxa dareemi karo wiil walba gabar ay la dhalatay ma fahanteen ana inta soo ooy karo waa soo ooyay inta rafaadi karo waa soo rafaaday inta la igu gumeysan karo videoga madaxiisa waa la igu gumeystay lacag iga baxday waqti iga baxay wax kasta waa iga baxay laakiin maanta wax kasta la igu gumeysan jiray banaanka yimaadeen ma fahanteen videogan waxa iga duubay nacas dhalay oo ay oo kalaba oo pastor oo soo dhaweystay oo walaal ii saaxiib midna aana gelin oo Ibrahim la dhaho videogan waxa iga duubay biyo waxa igu daray kaniin ma lahamsi wax daawo oo igu daray anyway videoga buu iga duubay wuxuu sameeyay oo igu rikaateen jira asi kaligiisna igu murid kaateen jirino cadeynteedana magaalada Muqdisho taala hore baa u xiray nimanka ma fahanteen hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ah ma fahanteen anyway farxan qarole lagu dacbeeyay waa la xiray cid taqaano hatta adiis marka imaadayna caawo waa arkay videogii wareegay anyway hadduu sharci jiro Soomaalina ma jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damkhanayo oo ii damkhanaysan please maanta garab idinka ahayn ma haystaani garab idinka ahayn ma haysto gabar la farxmeeyo ama la qasbaanin anigu ma horeen
maanta walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo walaashaa iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adeeg kugu dhici kartaa abaayo please xumaan ha ii fahmin anuu haddaa naag wax anigaa sameeye ahay please fiiri videoga waa aragtay sax videoga naag raaxaysanaysa diracna ma wada rejistiinna ma wadato ilaahay baa kugu dhaarsheeyey haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay baa ijeeday halkan sama ugama kaco ma fahantiin videogan markii hore liigu rakaateenay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro loosay baa markhaati ka ahay baabajay baa markhaati ka ahay mursal baa markhaati ka ahay wax cusub maaha please garab waa idinka ahayn ma haysto waa idin bariyaa please haddii aa gabar Soomaaliyeed ahay oo ay damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay please adinka garab idinkaga baahanahay garab aa idinka ahayn ma haysto mustaqbal baa leeyahay hooyo inaa noqdaa raba ubad aa dhalo hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado weligay waa jeclaa laakiin nacaska